bartamaha magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama ayaa islaan waayeel ah waxay dhabarkeeda ku sidatay xaabo qoryo ah si ay dabka ugu shidato. Mar qura ayaa waxay aragtay nin xaggeeda u soo socda, isla markii uu yimidna wuxuu ku yidhi, keen aniga kuu qaadayee ulayska qoryahan. wuxuu ku yidhi, tilmaan gurigaada, ogow waddadu aad bay u dheer tahay, kulaylka iyo habaaska socdana ma malaysan kartid. qorraxdu waxaad mooddaa in madaxa lagu soo dhowaynayo, kaaga darane gurigeeda waa dheer yahay, qoryaha uu sidane waa culays. gurigeeda markuu u geeyey, islaantii duqda ahayd waxay ku tiri, wiilkaygiiyo waxaan kuugu abaalgudo ma haysto, haddaan hayn lahaa waan ku siin lahaa. laakiin hal arrin ayaan kaaga naseexaynayaa, markaad qoomkaaga reer Maka ku laabato, waxaa halkaas jooga nin sixrow ah oo nebinimo sheeganaya ee ka digtoonow. magaciisana waxaa lagu sheegaa Maxamed ibnu Cabdilaahi. haddaad la kulanto ha ka rumaysanin, waxaan kaaga digayaa in aad raacdo ninkaas. kolkaas ayuu ku yidhi, maxaa dhacay oo loo raacaynin? waxay ku tiri, wuu dabeecad xun yahay, 120 ilaah oo kacbada taallo oo dadkiisu caabudaan ayuu hal ilaah ku soo koobay. markaas ayuu ku yidhi, haddaba ninkaas aad sheegayso waa aniga, waxaan ahay rasuulka ilaahay soo diray. islaantii jahawareer ayaa ku dhacay. waxay ku tidhi, ninkaas haddaad adiga tahay, waxaan qirayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu annaka rasuulullah. rasuulkeenna sharafta leh, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, akhlaaqdiisa wanaagsan ayuu islaamka dadka ugu soo jidi jiray.